assalaamu calaykum. nin kasta ma ahan sayxun, balse waxaa jira waxyaabo aanan fiicnayn uu sameeyo, loona baahan yahay inuu iska ilaaliyo si aanan guurkiisu u waxyeeloobin ama qoyskiisaba u burburin. sababtoo xaaskaagu waxay u qalantaa inaad ula dhaqanto sida aad rabto in lagula dhaqmo. haddaba muuqaalkeenna maanta waxaan ugu hadli doonnaa 10 arrimood oo aan loo baahnayn inaad xaaskaaga kula dhaqanto. ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. qodobka koowaad, adayga. inta badan ha caadaysan inaad xaaskaaga dhalacayso ama aad eedayso badnaa. waxaa wanaagsan inaad eegto waxyaabaha ay ku fiican tahay halkii aad eegi lahayd halka ay ku liidato, sida inaad ammaanto raashinkii ay karisay iyo howlaha ay guriga ka qabatay. ku dhiirigeli wax kastoo ay ku fiican tahay oo ay samayso. waxaa hubaal ah haddii aad hadallada dhaawacaya qalbigeeda ka ilaaliso inay ku jeclaanayso kuna raaligelinayso. qodobka labaad, xakamaynta ama kontaroolidda joogtada. rumayso ama ha rumaysan, inta badan adigu ma tihid kan saxan. waxaana xaaskaaga quruxda badan u fiican inay go'aannada qaar ay qaadato. waxaa laga yaabaa inay go'aanno qurux badan ay soo saarto. maskaxdaada ka saar inaad u baahan tahay maamulidda ku saabsan goobaha ay tegayso, waxyaabaha ay qabanayso, waxyaabaha ay qarashgaraynayso iyo sida ay guriga u maamulayso. halkii aad ka murgoon lahayd maareynta nolosheeda, waxaa wanaagsan inaad si kooxa ama midaysan aad u wada qabataan, isdhiirigelisaan, istaageertaan, una oggolow xaaskaaga inay noqoto qofka ay tahay, siina baalal ay ku duuli karto haddii aysan samaynaynin waxyaabo aan ka baxsanayn diinta islaamka iyo karaamada bani'aadannimada. qodobka saddexaad, inaad ula dhaqanto sidii ay tahay shay aad adigu leedahay. xaaskaagu ma ahan alaab, waa ooridaada, saaxiibkaaga ugu fiican iyo boqoradaada. waxay u qalantaa ixtiraamkaaga ugu wanaagsan, gaar ahaan inaad baahitirto dhinac kastoo ay u baahan tahay oo aad oofiso xaqa ay kugu leedahay. ixtiraam sii shakhsi ahaan, inaad aaminsan tahay tus. guurka quruxda badan waa marka aad ula dhaqanto xaaskaaga si ixtiraam uu ku jiro, iyadan way ku qadarinaysaa markaas. qodobka afaraad, waqti oo aad la qaadan weydo. waxaad tahay nin nasiib badan sababtoo waxaad leedahay oori, sidaa darteed ha ilaabin, hana ku mashquulin adduunyo. mararka aad ka raagto ama aad ka daahdo, u dir qoraallo jacayl, taleefanka ka wac, mar kastoo aad aragto u sheeg inaad jeceshahay, hana dareento inay tahay hadafka ugu weyn ee aad nolosha ka leedahay iyada. waxa aad kala xaddaysaa ama kala qaybisaa waqtiga aad la qaadanayso iyada iyo tan shaqada. qodobka shanaad, luuqad adag ama aflagaadaha kula hadlin. marka aad say noqoto ma tihid wiil dhallinyaro ah, luuqadda xun ee aflagaadada kuuma wanaagsana. inta badan afkaaga ilaali. waxaad ku dadaashaa in luuqadda adag ee bilaa naxariista aad ka fogayso ooridaada. aflagaadada iskabadda. waxaa jiro kelmado kale oo wanaagsan aad ku dhihi karto xilliga aad guriga joogto, sababtoo ah waxay u qalantaa gabadha haweenka aad ka dooratay inay maqasho kelmado aad u fiican oo afkaaga ka soo baxa. waxaad samaysataa kelmado iyada u gaar ah si ay u fahanto inay tahay boqoradaadii. qodobka lixaad, inaad xaaskaaga barbardhigto haweenka kale. shayga ugu fiican ay jeceshahay inay xaaskaaga kaa maqasho waa ammaanteeda iyo inaad u sheegto quruxdeeda. ha barbardhigin jirka, khibradda iyo quruxda haweenka dariiqyada maraya, waayo arrintaasi waxay ku keenaysaa inay murgooto, kaana shakiso inaad dan kale leedahay. waxaad noqotaa mid naxariis badan, samir badan, cafis badan, aadna ugu jilcasan oo go'aan adag aan lahayn. inta badan ee waxyaabaha wanaagsan aad ku dhiirigelisaa waa intay aad u jeceshahay kuuna soo dhowdahay. qodobka toddobaad, guriga shaqada taallo aad ka caawin weydo, ceebna aad u aragto. waxaa laga yaabaa in dakhliga guriga soo galo oo dhan keento dhammaantii ama qayb ka mid ah, laakiin taas micnaheedu ma ahan inaad xaaskaaga ka caawin weydo shaqada guriga. waxaad mararka qaar ka dalbataa inaad caawiso aad la nadiifiso wixii aad karto,
taasina waxay adiga iyo owridaada idinka dhigaysaa koox ama dad wada shaqayn leh oo isfahmi kara, riyadoodana rumayn kara, gurigoodana uu noqdo mid nadiif ah iyo mid ka wanaagsan guryaha kale. Qodobka 8 inaad inta badan aad u carootid. Marka uu ninka xaas yeesho waa nin koray, inuu xaaskiisa ku qayliyo ma aan wax fiican. Dilistu waaba mamnuuc. Inaad dharbaaxdo, riixdo ama aad alaab ku tuurto dhammaantooda waa arrimo xadgudub ah. Qoysku waxa uu ninka baraa sida carada loo xakameeyo loona noqdo hayin. Waxa uu bartaa sida deganaanta looga jawaabo iyo weliba kalgacaylka, waana cashar nololeed. Haddii uu intaas khibrad ka helana, nolosha dibadda iyo tan qoyskaba waa uu ku guulaysan karaa. Haddii kalena buuq iyo rabshad kama baxo weligiisa. Qodobka 9 khiyaamada iyo beenta. Haddii aad damacdo inaad arrimo u baahan inaad u sheegto ka qariso ama khiyaanaad ku kacdo, kuna fakarto inaysan ogaanaynin, waad isku ciyaaraysaa runtii. Sababtoo ah shay kasta oo xun waxa uu aakhirkii soo baxaa dibadda. Xitaa haddii aynan ogaanin khiyaanada aad ku kacday waa wax khaldan. Shay kasta oo micno leh ha ka qarin. Dooro inaad noqoto qof daacad ah, una noolow inaad fuliso ballamada aad ooridaada ka qaaday. Intaa iyo in ka badan way u qalantahay. Qodobka 10 hadiyad la'aanta. Hadiyad la'aantu waxay haweenku u tahay waxa aanan fiicnayn. balse haddii saygu xaaskiisa haba yaraatee marar aynan ogeyn uu kaga farxiyo hadiyad uu qalbigiisa ugu gartay, waxay noqotaa mid u muhiim ah, waxayna xoojisaa xasuusaha jacaylka iyo isku xidhnaanta. ugu dambayn, si kastoo aad u tahay hantiile ama qof caan ah, ogow nolosha dhabta waa midda ka dhex jirta qoyskaaga. haddii uusan deganayn familkaaga, ogow wax kastoo dunida yaalo aad heshaa ku degi maysid.